waa mar kale iyo barnaamijyadii aynu ku raadinaynay Somaliland la wada leeyahay sidii uu ahaa ballanqaadkeeni toddobaadkii hore waxaynu midmidiisu dul taagi doonaa guud ahaanba wasaaradaha dalka maantana waxaynu milicsan doonaa wasaaradda maaliyadda waxaanaynu u miidaan dayi doonaa meel kale oo ka xiisa badan madaxtooyada hase yeeshee waxay afeefiiga tahay inaanu jirin cid gaar ah oo barnaamijkani duulaan ku yahay balse waxaynu ciyaari doonaa doorkii ay warbaahintu ku lahayd in la helo Somaliland muuqaal qurux badan leh iyo bulsho midaysan muddo dhowr toddobaada waxaanu dhexda u xidhanay inaanu soo dhagadhagayno dhaliilaha isbarkan ee dhulka hooyo ka soo yeedha buux dhaafiyayna dhagaha muwaadiniinta maxaa ka dhab ah maxaase ka dhaleecayn kaliya ku kooban xog raadin iyo xuuraan badan kadib waxaanu soo taabanay xeedhada salkeeda tana waa xaqiiqada qof kasta oo ka xan raadisaaba uu ka xun yahay xaalka maaliyadda qaranka iyo halka uu xubsiitay tani waa wasaaradda ugu baaxadda weyn uguna dakhliga badan waa meesha ay maraan dhammaan lacagaha qaranku ku dhawaad 300 milyan oo dollar oo ay tahay miisaaniyadda dalku ayay maamushaa wasaaradda horumarinta maaliyadda qaab dhismeedka wasaaradda ayaa u dhisan hanaanka wasiir ku xigeen iyo agaasimo guud oo madaxweynuhu soo magacaabo halka agaasimo waaxadyada awoodda badanna uu wasiirku keeno ugu horeynba waa markii ugu horeysay ee shakhsi madaxweyne ka Somaliland uu beeshiisa siiyo wasaaradda ugu weyn dalka marka laga yimaado madaxweyne cigaal oo isna muddo kooban deegaankiisa wasiir uga dhigay wasaaradda maaliyadda magacaabistii wasiir Sacad Cali Shire oo ku ahayd yaab iyo amakaag ay bulshadu aan fariir ka qaaday taasi se maaha ahmiyadeena oo idil balse dalkan oo ah mid aan badqabka ahayn dhanna maantana balaaneegno halkan hawsha taala wasaaradda maaliyaddu waa mid ka mid ah shaashadaha aad ka daawan kartaan dulmiga iyo dheeliga baan ee Somaliland ka jira kolkan ka nimaadno wasiirka maaliyadda Sacad Cali Shire oo la ardaa madaxweyne biixi aan hoos ugu degno waaxyaha iyo shaqaalaha wasaaradda maaliyadda halkani waxa ay u muuqataa dukaan dhaxaltooyo oo hanti u aqoys qaraabo iyo dhalaan ood wadayaal aan ku bilaabay deegaanka Gabiley iyo galbeedka Saaxil oo ay ka soo wada jeedaan madaxweynaha iyo wasiirka maaliyadda waxa iyagu ku leeyihiin wasaaradda maaliyadda agaasimaha maamulka iyo lacagta agaasimaha waaxda iibka agaasimaha waaxda gaadiidka agaasimaha waaxda kaydka arkiifyada agaasimaha waaxda BFM-ka agaasimaha waaxda deeqaha caalamiga ah agaasimaha waaxda cashuuraha bariga agaasimaha waaxda dhaqaale hoosaadka agaasimaha waaxda tirakoobka iyo tayeynta iyo agaasima ku xigeenka guud ee kastamada intaasi waa halka ay u dhimatay oo hadaad eegto waxa ku soo baxaysa inaan halkan waxba cid kale ugu harin balse aan ku soconay xaggana ila eeg waaxda xisaabaadka iyo xafiiska xisaabiyaha guud ee qaranka baaraha guud ee kharashaadka qaranka xisaabiye ku xigeenka guud ee qaranka agaasimaha mashruuca horumarinta dawladda hoose ee GBLG-ga xisaabiyaha gaarka ee dakhliga caasimadda agaasimaha xafiiska xisaab xidhka qaranka haye soo ururiye cashuure bixiye ka xisaabiye iyo xisaabiye baardaaga ayaa ka ah dadka inta dhexe ee dalada haybta la huwata qaar waa ku xigeeno 3 iyo 4 ah awdal waxba ma dhaanto kuwana kama soo xaadiraan halka baran buu hoodle laascaanood oo ay wasaaradda maaliyaddu tahay meelaha aad moodo dadka deegaamadaasi in laga mamnuucay oo aanu qofna uga hawlgelin marka laga yimaado agaasimo waaxadyada iyo madaxda wasaaradaha maaliyadda oo xaalkooda aynu wada aragno bal markani fari kama qodne aan jaleecno guud ahaanba shaqaalaha wasaaradda maaliyadda shaqaalaha wasaaraddan aynu dhex taaganahay guud ahaan waxay ka kooban yihiin 1651 qof ardaaga madaxweynaha oo kaliya cid kale kuma weheliso waxa ay 1651 ka shaqaale ee wasaaraddan ay ku leeyihiin 856 kamida taasi oo ka dhigan in tiro ahaan marka la isku wada geeyo dhammaan beelaha daga Somaliland iyo gobolada idilkoodba oo la isku wada daray ay ka badan tahay kaliya inta beesha madaxweynaha uga shaqaysa maaliyadda dalka dadka kale oo kolka awdal laga tago iyaguna isugeyn aan ka badnayn shaqaalaha ay ku leeyihiin wasaaraddan 300 oo qof ayaa waxa iyadana aan indhaha laga qarsan karin in beelaha gobolka Sool buu hoodlay iyo baran ay wasaaraddan ku leeyihiin heer gobol iyo degmaba 30 qof oo kaliya halka iyaguna beelaha lahayd sooco ay idil ahaan ku leeyihiin shaqaalaha ay tiradoodu dhan tahay 1651 ka 3 qof oo kaliya intan kuma koobna aan ku soconay magaalada Hargeysa waxa ku yaala 56 xafiis oo cashuuraha barigu wax ku cashuuraan
56 ka xafiis ee cashuuraha bariga 43 kamida waxa haysta ardaaga madaxweynaha intan oo kaliya kuma ekee aan hoos u dhaadhacno waxa intaasi dheer Somaliland waxa ku yaala 4 kastam oo waaweyn ahna kuwa dakhliga ugu badan uu ka soo baxo kala ah kastamka Kalabayd kastamka Berbera kastamka Looyacado iyo kastamka madaarka caasimadda Hargeysa afartaasi kastam 3 kamidaba waxa haysta beesha madaxweynaha iyo wasiirku ay ka soo jeedaan waxaa jirta xafiiska BFM-ka oo ah mashruuca la yiraahdo xafiiska dib u habeynta xisaabaadka qaranka waxa xafiiskaasi maalgeliya World Bank waana xafiiska xiriiriya dhamaanba xisaabaadka wasaaradaha iyo hay'adaha dawliga ah ee dalka waxaan u dhaxeeyaa wasaaradda maaliyadda xisaabiyaha guud ee qaranka hanti dhawraha qaranka iyo wasaaradaha waana kan bixiya joojiya ama sii daaya foojarada lacagta qaranka xafiiskaasi waxa haysta wiil ay dhashay madaxweynaha walaashi halka wiilkaas walaalkiina haysto xafiiska mashruuca ay ku midoobeen dawladda hoose ee dalka ee loo yaqaano GBLG-ga wiilashaas walaalaha ah waxa ka xiisa badan wiilka uu madaxweynuhu abtiga u yahay Sodogiina waxa uu haystaa xisaabiyaha guud ee qaranka awoodda siideynta ama joojinta lacagta iyo 3 meelood ee ay marto marka lacag lala baxayo waxa gabi ahaanba haysta maamulka xafiisyadaasi qoyska madaxweynaha marka laga yimaado wasaaradaasi uu qoysku yeeshay wali ma isweydiisay lacagta madaxweynuhu la baxo halka ay maraan ama inta jaran ay sii marto ugu horeyn xisaabiyaha madaxtooyada ayaa dalabka lacagta sameeya geeyana wasaaradda maaliyadda waxa uu igman oo wasaaradda u qaabilsan dalabkaasi inay qabato xogayaha gaarka ah ee agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda waxa diyaariya agaasimaha maamulka iyo lacagta maaliyadda waxa Facebook ka saara madaxa Facebook-yada wasaaradda intaasi kadibna waxa loo gudbiyaa controlka xafiisyada xisaabaha guud madaxa xafiiska hubinta xisaabaadka qaranka ayaa isaguna hubiya una gudbiya bangiga dhexe gudoomiye ku xigeenka bangiga dhexe ayaa lacagtaasi ugu dambeyn bixiya waxaana ka qaado agaasimaha maamulka iyo lacagta ee madaxtooyada oo gaarsiiya madaxweynaha qaranka arrinta ugu xiisaha badan ayaa intaas oo qof iyo dhamaanba mas'uuliyiinta ay lacagta madaxweynuhu la baxaya martaaba inay yihiin beesha madaxweynaha dhammaantoodna waa kuwa loo doortay inay dhowraan ilaaliyaan xogta kharashaadka ku baxa madaxweynaha gabagabadiina waxa intaasi ku dhan xog raadin qaadatay muddo 4 toddobaad oo aan ku wadnay wasaaradda maaliyadda Somaliland oo markii horeba ahayd mid ay ku xirnaayeen tuhuna badani wali waxaanu raacda ugu jirnaa Somaliland la wada leeyahay barnaamijka iyo bulshaduba waxay haybinayaan hayaana ugu jiraan in la helo Somaliland la wada leeyahay taasoo lagu heli karo iyadoo hashii maandeed ay 60 luntay 19 dhiiga lagu helay loo sinaado maalisteeda